waxaa magaalada Stockholm si sharaf loogu soo dhaweeyay guddoomiyihii hore xisbiga wadani isla markaana musharax madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro kaliya isku duwan ayaa si fiican u soo dhaweysay sharaf leh munaasabadina sidan ay u dhacday guddiga horta xafladani laba arrimood way daaranto horta lambaro waa tii guddiga cusub lagu soo shaacinayay iyadoo fursad noo noqotay jaanisna noo noqotay inuu maanta nala joogaan Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro murashax madaxweynaha iyo siyaasiyiintii baalashii xisbiga wadani ku duulayay ee dadii dibadda xidhiidhinayay waxaan idin hadalkeedii ku soo goobayaa ilaahay guushaayna waafajiyo midnimadan hayna waafajiyo anigoo anoo ku hadlaya guddoomiyaha garabka haweenka Stockholm waxaa sharaf caawiya inaan ku soo dhaweeyo madashan quruxda badan leh madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciro iyo marwadiisa iyo dhammaan taageerayaasha wadani oo dhan waxaa kaloo doonaynaa soo dhaweeyo taageerayaasha xisbiga wadani ee dalalka dariska nooga yimid gaar ahaan Finland, Norway, UK iyo Denmark ugu dambeyn waxaan salaamayaa dhammaan taageerayaasha wadani dal iyo dibadba intii joogta salaan ka bacdi waxaan ku dari lahaa baahida ugu weyn ee maanta Somaliland ka jirta waxa weeyaan waa aqoonsina waxa keeni kara madaxweyne aqoonyahan degan oo ummadda reer Somaliland oo dhan simay madaxweynahaasina waxa weeyaan waa guddoomiyaha xisbiga wadani waana Cabdiraxmaan Ciro marwaayaan aad baad mahadsantahay بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتي وادي سلامة يا مرتي شرف تقييمها له مدحدة حسبك مشرحة مدحوينها عبد الرحمن محمد عبد الله هي مروديسة مدحدة كلين وبيه مقارضها سدا UK دنمارك نوروي لمانتي واحد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى دواء دمان الله هاي mar hore waa la yeeray halkana soo istaagay iyadoo aan ahaa gudidii hore haddana gudid cusub baan ku jiraa dadku mala waxay soo doonaan waa maxay iyadu miyaanay dhicin waxaan ka mid ahay wasiirada aan dhicin hadii taasina sacal cali shiro kala ahaa baan idin salaamaya anigu soo dhaweyn baan u kacay marti sharafta mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada آدي أدنى ويدي سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبك وطني dalka Sweden iyo degmooyinkiisa waxaan kaloo iyagana u mahadnaqayaa guddoomiyihii iyo guddigii hore ee iyaguna muddada dheer soo shaqaynayay iyo mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga ee caawa halka ku sugan iyo intii ay u suurtageli weyday inay ka soo qayb galaan munaasabadanba waxaan kaloo ku faraxsanahay inay Sweden noqoto dalkii ugu horreeyay ee shirweynaha xisbiga kadib aan imaado lana kulmo dalka Sweden xisbiga wadani waxay u tahay dal muhiima iyo laan muhiima waa Cabdi Qaadir Salo wadanka Sweden gaar ahaan magaalada